Office. Shirkadda Office waxay samaysay boorso ka duwan boorsooyinka kale. Waa boorso lagu magac daray Forwardex Robotics. Waa mid ogaan kara goorta laga fogaado wax ka badan 3 mitir, iyadoo qofka ogeysiinaysa inuu ka lumay habkii isku xidhiyay ama uu disconnect garoobay. Dib ayaa la iskugu soo xidhi karaa. Waa mid leh battery chargeyn kara qalabkaada electronic oo dhan. Sidoo kale waa mid la soconaysa qofka qaba saacadeeda iyadoo marnaba raacaynin qof kale. Waa mid ka leexan karta dadka iyo biraha. Waa mid kula soconaysa wax ka badan 12 saacadood. Waa boorso Oyo Personal Gym. Waa mid aad u isticmaali karto dhammaan dhisidda jirka. Waqti dheer waxaa soo isticmaalaysay shirkadda cirka ee NASA iyadoo loogu talagalay inay shaqaalaha ku sameeyaan hawada. Waa mid wata culays dhan 25 pounds ama kg. Waxaad ku samayn kartaa dhammaan nooc kasta oo jirdhiska ka mid ah. Waa mid fudud aad u isticmaali karto inaad ku ridato boorsooyinkaada. Vixol waa kabo cajiib ah. Waa kuwa leh TDS oo ah qalabka u sahlaya inay kabaha kolba nooc noqdaan. Sidoo kale waxay leeyihiin LED screen oo aad kabahaada ku saaran karto sawir kasta oo ku jira moobilkaada. Abka Vixol iyo kabahaada waxa ka dhaxaynaya xiriir adag oo sawirka kugu jira moobilkaada aad ku saaran karto kabaha, iyagoo kabaha u sahlaya inay sawirka soo saaran LED screen. Sidoo kale waa kuwa aad ku xayeysiisan karto xayeysiinta ganacsiga. Kiwano KO1 waa mid leh hal taageer aadna ku aadi karto meesha doonto. Waa mid sharaya saacaddii 15 kilomitir. Sidoo kale waxaad ku maamuli kartaa moobilkaada. Wuxuu iska caabin karaa ilaa 250 pound culays dhan inuu la safro. Wuxuu leeyahay gariirad u sahlaysa inuu meelaha kuskuusan ama jirjirrada ku fuulo. Sidoo kale waa mid aysan biyuhu galin. Sidoo kale waa mid taageerkiisu uu yahay fireproof ama uu dabku karin.
Cotodama Lyrics waa mid ka mid ah waxyaabaha shirkadda AIST loo soo gaabiyo ay magac iyo lacagba ku heshay. Waa qalab u samaysan sidii recordkii. Waa mid heesta ka dhigaya qoraal ama lyrics oodna akhrin karto. Sidoo kale waa mid la jaanqaadaya heesta. Haddii ay tahay mid xawaare ku socota heesta, wuxuu ka dhigayaa qoraalka xawaare. Haddii ay tahay hees slow ah, qoraalka wuxuu ka dhigayaa slow. Sidoo kale hanaankan waa mid ku shaqeeya Wi-Fi. Waa mid u baahan xidhiidh internet, ma aha Bluetooth. Waxaa ku jira wax ka badan 2 milyan oo heesa ah, iyadoo si maalinle ah loogu soo daro internetka website-ka heesaha cusub. Parrot Swing waa mini drone, waa midka kaliya ee awoodo inuu u duulo sidii diyaaradaha. Sidoo kale waa drone-ka kaliya ee leh nooca loo yaqaano autopilot ama iswadaha xorka ah. Sidoo kale waa mid leh kicitaan toos ah iyo degid toos ah, iyadoo u fududeynaysa systemka loo yaqaano flyback. Waa mid isrogrogi kara, waa mid aad u isticmaali kartid madadaaliye. Sidoo kale aad wax ku duuban karto. waxayna socon kartaa saacadii 19 mayl waxaana ka hegay moobilkaaga. Rotofarm waa shay wareega, waa mid matalaya dhul ballaaran. Waa cabir gaadhaya 5.2 feet ama 1.6 mitir iyo ballaadhan 15 inch ama 38 sentimitir. waa qorshayaasha ugu firfircoon dunida, dheer u baxaysa qaab wareega. waxaad ku abuuran kartaa wax ka badan 5 geed oo kala duwan. waa mid siinaya biyaha waqtiga saxda ah, isagoo biyihiisa lagu shubayo salka hoose oo ah meel bannaan oo loogu talagalay biyaha. Virtual Air Cooler waa air condition, waa qalabka qaboojinta. waa mid shakhsi ah oo isticmaali karo, aadna ka charge qaadi karto ama aad uga talaali karto laptopkaada ama power bankigaaga. sidoo kale waa mid biyaha aad ku shubanayso isla xilligan aad si isticmaalayso. waana mid fudud oo aad gacanta ku qabsan karto, sidoo kale dhaqso badan oo dhaqso ku qaboojinaya.